walaalayaal qisadan aan ka sheekaynayno waxay ku saabsan tahay gabadhaasoo da'deedu ay tahay 16 sano. waxaa qisadeeda ka sheekaynaya aabbaheed. wixii gabadhan ku dhacay ayuu aabbaheed nooga warramayaa. qisada ku dhacday waa qiso tilmaamaysa khaatumada wanaagsan. waxaa ku dhacay gabadhan yartaa waxaa weeye wax in badanoo annaga ka mida ay jecel yihiin inay noloshaan ku khatimtaan oo ku dhammaystirtaan. khaatumadeenna ilaahay khayr ha nooga dhigo iyo wanaag. aabbaheed wuxuu leeyahay mar allaale markaan qolkeeda ugu galay waxaan la yaabay ayaan arkay. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi gabadhaydu waxay ahaan jirtay mid ku caanbaxday akhlaaqda wanaagsan. waxay ahayd mid ka soo baxday xaqa ilaahay ku lahaa iyo xaqa ay ku lahaayeen makhluuqa iyo bini'aadanka. mid ilaahay ka cabsatay ayay ahayd. qur-aanka 30 jus ka kooban waxay xifdisanayd 29 ka mid ah oo hal jus ayaa u harsanaa. juskii kale ayay ku dartay. markii 30 jusba ay dhammaystirtay xagga xifdiga ayaa waxaa u soo galay buu yidhi ramadaankii oo markaasi la sugayey. ramadaankii ayaa noo soo galay ayuu yidhi iyadoo juskii kalena xifdisay oo qur-aanka dhammaantii si fiican u xifdisan. maalin maalmaha ka mid ah isagoo ninkii aadaamayey salaadda maqrib u aadaamayo oo la afuri rabo ayaan afurkii soo diyaarsannay. dadkii dhammaan ee qoysku ka koobnaana waa isu imaadeen si ay u afuraan ilaa gabadhaydaas mooyaane. waan isweyddiinno waxaan nidhi inay huruddo oo hurda la tagtay ayaa laga yaabaa ee bal qolkeeda aan ka fiirinno. waxaan aaday buu yidhi qolkeedii si aan u soo toosiyo oo aan dhaho kaala aabba afur. albaabkii qolka ayaan gargaraacay. weliba in badan ayaan gargaraacoo ku soo celiyey. wax ii jawaabaya wax qolka ka dhex sharqama ayaan waayey. markaasaan argagaxay buu yidhi oo cabsi isoo wajahday taasoo keentay inaan albaabkii jabiyo kadibna qolkii aan galo. waxaan arkay gabadhaydiioo sujuudsan oo tukanaysa. markaasaan farxay buu yidhi farxaddaasoo naxdinta iga qaaday li'anna gabadhaydoo sujuudsan ayaan u jeedaa. waan sugay si sujuudda ay u dhammaystirato. hase yeeshee sujuuddii baa dheeraatay oo ay ku dheeraatay. wakhtiba wakhti buu ii dhiibay. wakhtigii baa dheeraaday. kadib baan u dhawaaqay oo magaceeda ugu yeedhay ku soo celceliyey. wax ii jawaabana ma arkin. kadib baa intaan u soo dhowaaday ayaan gacantaydii dul saaray si aan u dhaqdhaqaajiyo. markaan gacantaydii saarayba sujuuddii bay ka dhacday oo dhinac bay u dhacday. waan u wacay oo magaceedii baan ugu yeedhay. iima soo jawaabayso. waxaan dareemay gabadhayda in xunuun iyo dhibaata ay haysato. kadib waan orday oo bannaankaan u baxay. dhakhtar baan u yeedhay si degdeg ah. dhakhtarkii baan keenay guriga. gabadhii buu fiiriyoo baaray. kadibna jawaabtuu igu soo celiyey waxay noqotay adeer waaritaanka waxaa iska leh ilaahay oo keliya. gabadhaadu waa dhimatay oo naftaa ka baxday. aabbihii wuxuu leeyahay waan murugooday murugo aad iyo aad u daran taasoo ay keentay dhimashada gabadhaydii wanaagsanayd ee reerkaan u jeclaa ee wanaagga badnayd ee aan ku faani jiray taasoo adduunka iiga tagtay oo alla oobsaday. muruga isoo wajahday buu yidhi aad u daran. hase yeeshee waxaan xasuustay buu yidhi khaatumada wanaagsan ay ku dhimatay oo iyadoo sujuudsan ay naftu ka baxday. waxaan naftayda ugu sheekeeyey gabadhaadu way dhimatay oo naftaa ka baxday ayadoo sujuudsan oo rabbigeed hortiisa sujuudsan. gabadhaydu way dhimatay ayadoo sooman oo afurkii la sugayo wa maca daalika salaad tukanaysa oo meeshii ugu qiimaha badnayd salaadda ku jirta oo ah sujuudda. naftaydan sidaa ku qanciyey buu yidhi. marka inshaa allahu tacaalaa gabadhayda jannada ayaan isku arki doonnaa. waayo gabadhaydu way dhimatay ayadoo kitaabka ilaahay xifdisan kitaabka rabbigeed ayadoo dusha ka haysa ayay dhimatay buu yidhi. taasoo tusaale u ah gabdhaha wanaagsan ee muslimaadka ah ee dhowrsoon ee rabbigood adeecaya. marka gabadhaadu xaalad wanaagsan bay ku dhimatay waxba ha u murugoon. ilaahay tabaaraka wa tacaalaa jannada ayuu gelinayaa. sidaas ayaan isku qanciyey buu yidhi. dhammaanteen waxaan ilaahay ka baryaynaa khaatumo wanaagsan inuu nolosheenna noogu khatimo. qof walba noloshaan waa ka guuri doonaa. waa laga qaban doonaa wakhtigay doontaba ha noqotee. qof walba waa geeri suga weeye. sababtuu doonaba ha u dhinto
meeshuu doonaba ha ku dhinto qacantuu doonaba ha ku dhinto qof walba geeri ayuu sugayaa ka fakan mayo waa wax go'an oo meel yaal laakiin xaaladaad ku dul dhiman doontid xaaladdaas way xaaladda la rabo qofka mu'minka intuu nool yahay inuu ka fakaro ilaahay inuu weydiisto khaatumo wanaagsan ilaahu nagu irsaaq nolosheenna inaad nagu khatintid khayr iyo wanaag iyo niyad saafi ah iyo camal wanaagsan in shaa allahu tacaala